uma malaynaysid ee bidaar way ku gali rabtaa. ها wiilow adig ayaan kula hadlayaa fadlan iska taxadar sida laga soo xigtay dhakhtar ku takhasusay dib u soo celinta timaha ka biibay madaxa oo lagu magacaabo Dr. Alan Bowman wuxuu aaminsan yahay in ilaa 20% ragga ay bidaartu ku bilaabato marka ay soo gaaraan da'da 20 sano inkastoo hidasidaha iyo dhaxalku ay kaalin weyn ku leeyihiin arrintan haddana wad xakameyn kartaa timahaaga adigoo isticmaalaya cuntooyin leh nafaqo u wanaagsan timaha waxay ilaalinayaan timaha qaybta jeedda hore ama qaybta fooda hore oo si wanaagsan ayay u bixinayaan sidoo kale kuwa dhaxda ayay bidaarta ka celinayaan si la mid ah qaybaha kale ee jirka timuhuna waxay u baahan yihiin in la nafaqeeyo oo la siiyo daawooyin kala duwan ayuu yiri dhakhtarku nafaqada waxay marka hore daaweynaysaa haragga sida xididada iyo unugyada kale ee jirka kadib ayay timaha soo saaraysaa waa muhiim haddaba inaad cunto cuntooyin leh nafaqo u wanaagsan timaha haddaba maanta barnaamijkeena xogdoon waxaan kugula wadaagi doonaa haddii alla idmo ilaa 7 cunto oo u wanaagsan timaha kana hortaga bidaarta fadlan intaanan barnaamijka gudagelin waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like dhahdid oo aad ku dhufatid batoonkaas si uu bulsho badan u gaaro sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid iyaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub ku soo dhawow barnaamijka oo faahfaahsan nambarka koowaad dufanka omega 3 ama omega 3 waa saliid u fiican maskaxda iyo wax intaa ka badan omega 3 waxay dhalaalinaysaa madaxaaga waxay saliidan wax u taraysaa timaha iyo unugyada madaxa ku jira waxay bixisaa timaha waxay soo saartaa kuwa soo bixi waayay sida laga soo xigtay dhakhaatiirta sidoo kale waxay saliidan jilcisaa timaha waxayna ka celisaa inay jajabaan ama daataan marka aad qubaysanaysid haddaba jirkaaga iskiis uma soo saari kara saliidda lagu magacaabo omega 3 wax kasta oo aad cuntid waa wax jirkaaga ka soo baxaya haddaba cun kalluunka ama marsa saliidda lagu magacaabo omega 3 nambarka labaad maadada sinki in haragga ay timuhu ka baxaan oo uu soo hagaago ayna timuhu si wanaagsan kuugu baxaan maadada sinki ayaa arrintaas gacan weyn ka qaadanaysa sidoo kale waxay hagaajisaa hormoonada jirka iyo madaxa sidoo kale waxay soo saartaa saliid hoose oo aan la dareemayn balse timaha quudinaysa ha iska badin sababtoo ah waxaa ku jira maado loo yaqaana testosterone taasoo lala xiriiriyo inay timaha baabi'iso sida dhakhaatiirta qaar ay aaminsan yihiin waxaad u baahan tahay kaliya 12 milligaraam maalintii oo dhan nambarka saddexaad protein marka chemistry-ga la eego timahaagu waa protein nadiif ah haddaba haddii aadan protein wanaagsan u cunin jirkaaga iyo timahaaga dartood bidaar way ku geli doontaa sida xaqiiqda ah sidoo kale haddii proteinka aad isku yarayso timahaagu waxay noqon doonaan kuwa cirrooba ama caddaada sida uu sheegay Dr. Bowman waa inaad cuntaa raashin dabiici ah oo leh protein wanaagsan haddii aadan hilibka cunin hawalwelin waxaa jira daawooyin badan oo lagu diyaariyey nambarka afraad cunto ay ku badan tahay maadada xadiidka ama ironta inaad cunto xadiid ama daawo leh iron waa qayb ka mid ah isku dheelitirka caafimaadkaaga maadadani waxay kordhisaa unugyada dhiigga ee jirka oo dhan haddii aad cuni weydo dhiiggaaga waxaa ka dhammaanaya hawada qaybta ka ah in timahaagu ay si wanaagsan u baxaan dhakhaatiir badani waxay xiriir u yeelaan dhiig la'aanta iyo bidaarta sidaasi waxaa yiri Dr. Baitana nambarka shanaad vitamin A and vitamin C vitamin A iyo vitamin C waa sidaan dhahno labadan vitamin waxay soo saaraan maadooyin bixiya timaha yaryar ee xadda ah haddii aad ku qubaysato waxyaabo lagu daray labadan vitamin timahaaga waxaa ka dhammaanaya jajabka si wanaagsanna way u baxayaan nambarka lixaad maadada magnesium maadadan lagu barto chemistry-ga ee magnesiumka waa dareeraha afraad ee ugu badan jirka waxaana loo baahan yahay inuu sameeyo ilaa 300 oo falcelin ah waxaa ka mid ah in timaha ay sida laga soo xigtay macadka caafimaadka dabiiciga ah sida dhakhaatiirtu ogaadeen qofka jirkiisu ay ku yar tahay maadadan rag ama dumarba wuxuu doona ha ahaado bidaartu way u sahlan tahay gelistiisa
maadada selenium waa mid kale oo ka mid ah chemistry-ga. Waxay la falgashaa dhiigga hidde-sidaha ee DNA-ga kaasoo xoojiya awoodda difaaca jidhka gaar ahaan dhanka ilaalinta timaha. Haddii ay kugu yar tahay maadadan, waxaa kaa xirmaya timaha xaadda jidhka iyo kuwa madaxa sababtoo ah waxaa yaraanaya bixitaanka timaha kadibna way xirmayaan. Waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalka. Fadlan waxaan kaa codsanayaa haddii uu ku cajabiyey inaad videoga like dhahdid si uu bulsho badan u gaaro. Sidoo kale haddii aad nagu cusub tahay inaad nagu soo biirtid ayaduna waxay noo tahay dardar iyo dhiirigelin cusub. Waad ku mahadsan tahay la joogaaga.